shalay waxaa la haydeen madaxweyne muuse bixi wuxuu aaska uga qayb galay oo u buunbuuniyay waa nin in adeerkii maanta xildhibaankii hore allah u naxariistay xildhibaan aadan isna waata magaalada hargeysa la keenay madaxweyne muuse bixi waa ka aaskiisii ka qayb galay bal maanta maxaa odhan doontaan war aad iyo aad baan idin salaamaya meel walba aad joogtaan basharaf iyo karaamo ku noolaada muuqaalkan inoo sheergareeya fogeeya maanta bal waxaan rabaa qoladii munaafiqiin tahayd ee magaranaysa madaxweyne muuse bixi munaafaqada ka dhex raadinayay iyo dalkan iyo dadkanba munaafaqada ku dhex waday bal maanta waxay ku jawaabayaan shalay waxaa la haydeen madaxweyne muuse bixi wuxuu aaska uga qayb galay oo u buunbuuniyay waa nin in adeerkii maanta xildhibaankii hore allah u naxariistay xildhibaan aadan isna waata magaalada hargeysa la keenay madaxweyne muuse bixi waa ka aaskiisii ka qayb galay bal maanta maxaa odhan doontaan bilaa maantana waxaa odhan doontaan wuxuu iska jeedinayay kaamirooyinka kusoo foorara ilaa wax kale ilaa munaafiqu ma waayo meeluu kusoo meeraysto oo ummadda ula soo hor fadhiisto laakiinse anigu waxaan la yaabanahay dadka idinka wax idinka dhagaysta ayaa idinka sii liita dadka idinka sacabka inii tumaya ayaa idinka sii liita war qof aad og tahay munaafaqadiisa oo maanta meyti dhimatay wax ka dhex raadinaya horta ninka sacabka u tumaya ayaa horta kasii liita dalku maanta wuxuu maraya marxaladii ugu sarreysay buu maraya heer wuxuu marayaa meyti meel ku dhimatay halkii duco loo ducayn lahaa oo magaranaysa duco lagu sii kaabi lahaa inuu qof walbaaba intuu social media soo fadhiisto inuu dhaho madaxweynaha kana in adeerkiisa kana waxa weeye waa looma ooyaan waxaan arkaysaa meel kasta waxa lagu soo qoriyay xildhibaanka dhinta allah u naxariistay meydkiisa lama soo qaadayo waa nin looma ooyaana waa nin reerkana waa ninkii waxyaalo noocaas oo kale oo mangaamnimo ah bal ilaahay baa ku dhaashay idinka kuwiina sacabka u tumaya dadka noocaas ah ay ku sii dhiiri gelinayaan inay bulshadan iyo dalkan magaranaysa la kala dilo soo kama sii liidataan war nacayb maanta muuse bixi loo qabo in adiga lagaaga faa'iideysta maaha bal nacayb aad muuse bixi loo qabaaba reer dhan loo aflagaadeynaya reer dhan baa intaad loo aflagaadeynaya waxaa laleeyahay dad laangaabiya baa tihin dad magaranaysa dalkan iyo dadkanba aan waxba ku lahayn baa tihin war nacayb hadda muuse loo qabo waa tuubo muuse la soo raacaya laakiinse reer kale magaranaysa loo socda muuse waa jaranjaradii loo sii mariyay reerkaas nacayb marka muuse loo qabo inaad reer dhan haddana u aflagaadeyso weliba qabiilkaas aanu qabiilkii muuse bixiba ahayn in loo aflagaadeeyo waxa weeye taa anu waxaan u arkaa munaafaqad laga dhex shaqaynayo sidii ummaddan la isugu diri lahaa laakiinse dad baan waxaan fahansanayn dad baa sacabka isaga tumaya dad baa raggaa odhanaya wallaahi runsheeg baa tihin maxaa runsheega war maanta munaafaqada muuse lagu wado waxaad ogaataan madaxweyne kasta way sugaysaa qofkan baraha bulshada soo fadhiya ee ummadda munaafaqadii kala dilista ee magaranaysa ku hor wada waxaad ogaataan inaanu isbedeleen baritoolana kii yimaadaba ilaahuma curri yimaado ama faysal yimaado ama muuse bixi uu dalka sii joogaba kii yimaadaba qofkaasi isma bedelayo waa munaafiqi halkan buu ku soo fadhiyaa madaxweynihii yimaadaba xumaantiisu ka shaqaynaya marka inaga siyaasiyiintii dalka joogtay waxa weeye waxaad maanta arkaysaa in moogo waxa lagu hayo waxa weeye siyaasigu ilama isagu ka fashilmo isagoo xitaa wax qabadkiisa doonay inuu wax qabto ayay inagu waxaanu ka shaqaynaynaa dhexdeena waxaanu ka shaqaynaynaa ninkaas sidoo ku fashilmi lahaa meesha uu kaga fashilmayo ayaanu raadinaynaa marka war anu waxaan odhan lahaa war haddaan ummadan ama dalkan uu sidan ku sii socdo weligiin horumar gaari mayno dalkan iyo dadkanba weligood inaanay bartaa dhaafay inta aan dhageysanayno dadka munaafiqiinta inta aan dhageysanay dalka kala dilaya ee isaga ka dhigaya inuu ama xusbi taageero ama inuu magaranaysa muuse nicabi isaga ka dhigaya waxa weeye intaan dadka taageerino aan sacabka u tumayno dalkan iyo dadkanba ma horumarayaan waxaanad ogaataa madaxweyne kastaaba inay arrintan sugayso qof kasta oo munaafiqana inaanu weligii isbedelayno munaafiqnimadiisa weligii la soo taagnaanayo imisaanu aragnay dowlado hore ka daba qaylinayay maantana sidii u qaylinaya marka dadka noocaas inaan maalin walba bulshadeena ay sharaf iyo karaamo ku yeeshaan oo la dhageysto waxa weeye anu waxaan u arkaa qalad baan u arkaa qofka dhageysanaya ayaa ka sii liita laakiinse muuqaalka inoo sheer garay